waxaadna noqotaa mid dadka wanaajiya xitaa haddii aadan adiguba la kulmin wanaag. Ma ahan iyaga dartooda ee waa inuu Allah jecel yahay kuwa wanaaga sameeya. sida ay lugahaaguba ugu reebaan dhulka raad ayuu carabkaaguna ugu reebaa qalbiyada raad ee dhadhanso oo tafafta erayadaada intaysan kasoo bixin afkaaga. ilaasho sharaftaada iyo karaamadaada, hana noqonin mid iska daba dhajiya dadka. qofka ku rabaa waa uu kusoo raadin doonaa xitaa haddii aad ku dhex jirtid saxmad. qofka aan ku rabinse kuma arki doono xitaa haddii aad taagan tahay hortiisa. waxaad noqotaa mid adag waayo noloshu ma qaabisho kuwa jilicsan oo ducafada ah. mar walba oo aad dhacdo kor u kac, mar walba oo khalad kaa dhacayna sax, mar walba oo aad fashilantana isku day mar kale, mar walba oo ay maalmuhu kaa dhigaan mid murugsan dhoola cadday oo cusboonaysiya rajooyinkaada Allahna tala saaro. ha dibdhigin salaadaada waayo Allaba ma dibdhigi doono geeridaada. waxa uu leeyahay Cali bin Abi Daalib, ha ku ooyin barkintaada, taasi waxba kama bedelaysa arrinkaada ee istaag oo ku ooy sujuudaada oo markaas kadibna Alla wuxuu kugu irsaaqi doonaa fudayd culayska kadib. waxaa la dhahaa catar midka ugu carafta badan uguna qurux badan ma ahan kan aad marisa jirkaaga iyo dharkaaga ee waa midka aad ku udgisid carabkaada oo dadkuna ay dareemaan carafta iyo uduga kasoo baxaya kelmadaha afkaaga.